kooxaha Chelsea, Manchester City, Arsenal oo maanta guulo muhiim ah gaaray Horyaalka Premier League ayaan insha Allah dul istaagi doonaa iyo wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha ayaan dul istaagi doonaa. Chelsea ayaa haddii aan ku bilaawno Chelsea ayaa maanta u horeysay Chelsea oo guul muhiim ah gaartay kooxda Nottingham Forest xilli Costo asaan loo taagay. kooxda Chelsea ayaa guul qiimo badan gaartay Nottingham Forest kadib markii ay marti u ahaayeen garoonkeeda ayayna 3-0 ku xasuuqday kulan ka tirsanaa wareegga 8aad ee Horyaalka Premier League taasoo ka dhacay garoonka City Ground. Blues ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqadii 49 kadib markii Pedro Neto uu bixiyay kubad uu madax ku dhaliyay Jason Adebayo. 3 daqiiqo kadib 52 Pedro Neto ayaa isagana shabaqa gaaray isagoo goolkii labaad oo u dhaliyay Chelsea kadib caawin uu ka helay kabtanka kooxda Reece James. daqiiqadii 84 Reece James ayaa isna dhaliyay goolkii saddexaad ee ciyaarta inkastoo Chelsea ay ku ciyaaraysay 10 ciyaaryahan kadib markii uu Malo Costo laga saaray garoonka daqiiqadii 87 markii ciyaarta dhamaad ahayd kadib qalad culus uu galay. Guushan ayaa Chelsea u sahashay inay gaaraan 14 dhibcood taasoo isku meel gaar ah uu riixday kaalinta afraad ee kala sareynta Premier League halka Nottingham Forest ay ku sii jirto xaalad adag iyadoo leh 5 dhibcood oo kaliya taasoo isku meel gaar ah u gelisay kaalinta 17aad. halka haddii aan leexno Manchester City ayaa iyadana ciyaartii labaad ee Horyaalka Premier League ay geelaysay maanta maadaama ay Manchester City iyadana oo la qaban laasan yahay ciyaaryahanka striker ee Haaland ayaa asala 2 gool ku shubtay. Manchester City oo Everton garaacday xilli Haaland uu noqday geesiga ciyaarta. kooxda Manchester City ayaa guul muhiim ah ka gaartay Everton kadib markii 2-0 ku duubteen kulan ka tirsan wareegga 8aad ee Premier League taas oo ka dhacay garoonka Etihad Stadium. weeraryahanka reer Norway Erling Haaland ayaa ahaa geesiga ciyaarta isagoo 2 gool u dhaliyay City daqiiqadii 58 iyo daqiiqadii 63 taasoo kooxdiisu xaqiijisay 3 dhibcood oo qaali ah. guushan ayaa ka dhigtay in Manchester City ay gaarto 16 dhibcood taasoo si ku meel gaar ah ugu riixday hoggaanka kala sareynta Horyaalka Premier League maadaama Arsenal iyo Liverpool ay ciyaarahooda dhiman yihiin. dhanka kale Everton ayaa weli ku jirta booska 10aad iyadoo haysata 12 dhibcood kadib guuldaro ay la kulantay kooxda ka dhisan magaalada Manchester. halka Arsenal iyadana ay kulankan Arsenal iyadana Fulham ay guul dirqa oo muhiim ah iyadana ka gaartay kooxda Arsenal iyadana la celin laasan yahay maadaama hoggaanka iyadana ay si dheeraysay maadaama markii koowaad ee markii hore Liverpool ay hal dhibcood u haysay halka Arteta macalinka kooxda Arsenal oo asayna difaacay weeraryahankiisa Fedra Yokeres taasoo ka dhigan in Arsenal ay horyaalka u sii dhawaanayso. Arsenal haddii aan u leexdo Arsenal ayaa guul dirqa ah ka gaartay kooxda Fulham ee isku magaalada yihiin xilligaas ee hoggaanka sii dheeraysatay. kooxda Arsenal ayaa 3 dhibcood muhiim ah ka heshay Gaaray kadib markii ay 1-0 kaga adkaatay Fulham taasoo ka dhigtay inay 4 dhibcood ku qabtaan hoggaanka Horyaalka Premier League. goolka kaliya ee ciyaarta ayaa yimid qaybtii labaad markii oo Fernando Trossard uu shabaqa dhigay kubad uu si qurux badan u soo tuuray Bukayo Saka kana timid Ladris ah macnaha koorna taasoo uu madax ku sii taabtay Gabriel ka hor inta uusan Trossard dhameystirin uu jilibka ku dhameystirin ciyaarta oo dhan. kooxda Mikel Arteta ayaa maamuleysay kubadda iyagoo si weyn u xakameeyay ciyaarta kana hor istaagay Fulham inay fursado cadcad helaan. difaaca Arsenal ayaa ahaa mid degan si habsami leh u shaqeeyay taasoo adkeysay in martigeliyaasha ay khatar abuurin. kooxda Fulham oo ciyaaraysay garoonkeeda ayaa ku dhibtootay inay jebiso nidaamka difaaca ee Arsenal iyadoo weeraryahanadooda
lagu cadeeyay inaysan helin baasas ay ku hanjabaan guushan ayaa ka dhigan in Arsenal ay mar kale la wareegto hogaanka Premier League iyadoo 4 dhibcood ku qabatay Talent koowaad halka Manchester City ay ku sii jirto Talent labaad bandhigan adag oo ay muujiyeen Arsenal ayaa mar kale cadeynaysa in kooxda ay si dhab ah ugu dagaalanto hanashada horyaalka Premier League ee xil ciyaareedkan haddii ay intaas falanqeynta inaan kusii dhaadhacno Arsenal hadda guul ayay gaartay sidoo Manchester City Chelsea laakiin balse Brito oo axad ah ayaa isku beegmay Manchester United iyo Liverpool halka Liverpool Anfield lagu ciyaaray Liverpool haddii ciyaartaas lagu adkeeyo ama laga badiyo Liverpool waxa soo dhacayo tartanka ugu jirto horyaalka maadaama xilli hore ay tahay horyaalka round 8 ama wareegga sideedaad ciyaarta sideedaad ee horyaalka inkastoo uu wali final kama qodno plus maadaama tartankan uu soconay ilaa hal sano oo 38 kulan la ciyaaray kulanka sideedaad la ciyaarta ay tahay marka insha Allah wixii kala soo kordho Arsenal iyo Falanqeynta iyo wararkeena ciyaaraha u dambeeyay insha Allah muuqaalada waxa ka daawan doontiin ciyaaraha maanta TV aniga soo tawina walaalkiina Maxamed Aad diintana soo gaarto kuma sitiin muuqaalka like noo saar subscribe haddii noo heen subscribe noo saar muuqaalka noo sheeg dareewana kuma sitaa